madasha waxaan ku salaamayaa islaanta islaamka dhammaantiin madaxda qaranka madaxda kale ee hay'adaha iyo marti qaadnay ganacsatada aqoon-yahanka cid kastoo halkan fadhidaba qof walba waxaan ku salaamayaa maqaamkiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta ka bacdi kolley madasha wixii loogu talagalay waa laga warramay ku noqod badan ma leh waxay tahay waxaa loogu talagalayna xilkii qaranka aanu haynay wasaaradaha iyaga hawshan soo bandhigay dhaqaalaha xagga dhaqaalaha lagu tirinayaa inaanu wixii waxqabadka iyagu ahaa iyo taagtayadiina soo bandhigno wixii nagu adkaadayna la wadaagno shacabka xilka loo hayo iyo ciddii kale ee danaysaha ulaheenna ama wax inaga caawisa iyo aqoon-yahanka oo Soomaalidu waxay tiraahdaa nin hilaab xumay inuu wax qarsanayaa la moodaaye kolley nin kursi fuulna way iska eedeysan yahay eedayna la qaybsado ayaanu ku talagalnay oo aqoonta meelaha ku dhaqaansan la soo saaro oo wax la isku biiriyo lana joogteeyo haddii alla yidhaa taas waa intaa anigu waxaan ku magacaabnay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga labadaa marka la maqlo qofkii gaajoonaya wuu iska yara miliqsanayaa oo hilib iyo xusuusanaya caana iyo cad iyo maxaan ku dhahay kalluun iyo wax udgoon saaxiibka baan gudoomiyaha baankan markuu u sheegay waxaan ka nacasoomay saddexda casho ee halkan la fadhiyo dadka waa dhargin kari lahaa maalin aan kalluun siiyo iyo maalin aan siiyo caano geel ka dhargiyo iyo maalin aan ka dhargiyo hilib mid geel iyo mid aadhe laakiin qorshahan lagu darin saaxiibadeenay ma xusuusin intaa waynu karnaa laakiin sanadka dambe haddii alla yidhaa ayaa lagu soo talagelayaa ayadoo la dharagsan yahay in taladana iyo maskaxda la toojiyo kolley wasaarad ahaan annagu itaalkayga dee waa dadaalayaa ninna odhan maayo waan gaabinayaa laakiin waa waxa laga arkaa uun dadaalku ee lagu qiraa markay tahay xoolaha iyo markay tahay kalluunka intaba itaalka waa dadaalaynaa marka aan xusuusto ama eego tarwadda imaka uu cabdulqaadirna iiga horreeyey ee beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka waxaan isdhahaa dal qaniya baa tihiin markaan eego dadkana haddana dadka faqiirka laynagu tirinaya waxaaba la sheegayay malaha dadka ugu hooseeya inayno fakhriga qolada saddexaad ama ugu hooseysa xagga hoose liiska hoose laga tiriyey mise wankaa baynu nahay idhoono taa anugu waxaan u tirinayaa meelaan weli la taabanoo tanaynu maanta bilowno in maskaxdun baanay tuujinay waynu dal qaniyaynu joognaa dalka qanigiina waxa haddaan ubacdiisaba la gaadhin dee waxa dul yaalla ee xooluhu ka mid yihiin kalluunka ka mid yihiin baynu tamarteenni kula soo bixi kari lahaanay ama aynu tadawur ku samayn kari lahaanay sidii aynu uga helnay aabbayaasheen ee xoolaha loo dhaqi jiray oynu ilaa imaka u dhaqayno oo cudurkii weligii dili jiray uu dilayo oo biyola'aantii weligeed ay u dhiman jireen ay u dhimanayaan oo xaalufkii iyo cuntola'aantii ay u dhimanayaan oo aynu kari weynay inaynu tadawur samayno aynu kaga gudubno taasuna waa waxay nakayna saaranee wax laynoo soo waaridaya maaha waana dadaalka marka miisaanka waxaan saaraa waxa ilaahayna siiyey caafimaadka iyo wakhtigaa ugu qaalisan labadabana waynu ku ciyaaraa shantii waxaa laga taliyey layidhi qofku ha ka digtoonaado intuu caafimaadka qabo intaan cudur helin intuu firaaqo leeyahayna intaanu mashquulin ha ka dadaalo shabaabnimadiisana ha ka faa'iidaystay intaanu gaadhin ayaanaynu ka faa'iideyno dee waynu naqaanaa wakhtigeenna siduu ku baxo lagama yaabo marka wakhtigeenna la xisaabiyo ilaan wakhtigaa lacagtiiya xoolihiiya horumarkiiya maskaxdiiya wax walba ah wakhtigeennu wuxuu ku lumaan suuqyada sida gabigii timacadda ishtirinayay iyo macnola'aan haddaynu horta macnola'aantaa ka baxayno ay naga dhab tahay inaynu wax tarro oo aynu saacadaheenna iyo maalmaheenna qaybinno wax soo saar dhabaynu samaynaynaa ninna cidi karbaashi mayso ninna cidi gurigiisa ka soo saari mayso wax sheeguna waynagu dhibo waxaynu jecel lahay ilaa xashiishka in laynaga xaadho oo inakoo fakhri ah ayay dad ajnabi guryaheena ka shaqeeyaan oo waa ogtihiin dadkeenna tolkaana waa wada bakteeya iyo helyadaadii nin walba wuxuu ku leeyahay waxisii dad ajnabina waxbaad siinaysaa oo way shaqaysanayaan ayaguna shaqaysan maayaan marka anigu waxaan leeyahay horta ha lagu daro taa lafteeda in kastaan inoogu jirin taa wakhtigana ha lagu daro waxaan ku soo dhowaanayaa waxa weeye
xoolaha iyo kalluumaysigu waxa ogtihiin inay qayb laxaad ka qaataan sugnaanta cuntada iyo dakhliga ay dalku helaanba waxa kale oo ogtihiin wasaaraddan in kalluumaysiga iyo xooluhu inay u xil saaran tahay barnaamijka horumarinta kalluumaysiga barnaamijka daryeelka caafimaadka xoolaha iyo horumarintooda diyaarinta shuruucda iyo qorshayaashooda lagu taageerayo wax soo saarka horumarinta iyo tababarada cududda shaqaalaha iyo hawlwadeennada kale iyadoo la kaashanayo daneeyayaasha kala duwan iyadoo ay jiraan hawlana socdaan haddana weli waxa jira caqabadooyin fara badan oo ay ka mid yihiin abaaro soo noqnoqdo had iyo goor xoolaheennu ku madhaan dadkeennu ku barakacaan kaabayaasha horumarinta oo aan weli dhammaystirayn aqoonta kalluumaysiga iyo cunistiisa oo aad u hooseysa oo dhaqan inoo noqotay dhaqaalaha aynu haysanno oo xadidan oo macnihii aan inoo asmaxaynin investment badan iyo maalgelin fara badan warshadaha kalluunka qascadeeya oo hadda la bilaabay in la sameeyo laakiin hore aan u jirin markaa barnaamijyada noo qorshaysan waxaa ka mid ah in xoolaha loo sameeyo seerayaal ay ku baxsadaan wakhtiga adag ee abaaru dhacaan seerayaashaas xooluhu waxay ku nool yihiin waxa weeye waa biyo iyo baad marka hele waxa soo hadha waa daweyntii uun ilaahay ma haddii daweyntu dowladdu xil badan bay iska saartay hay-adda faawna waa naga caawisaa weli dawalaan nagumay dhicin abaartan xidhiidhka ahayd laakiin waxaa nagu dhacaysaa dhulkii oo la xaalufinayo iyo biyihii oo yaraanaya waxaa ka warhaysaan barnaamijkii seerihii qudhahaa ee lagu tabcay in aad looga faa'iiday sanadahan abaartii dhacday markaa waxaa noo qorshaysan inaannu 6 gobolba seera aroori oo kale ka samayno maalgelintiisii inkastaanu hayn haddana waa barnaamij noo qorshaysan ama miisaaniyaddeenna ha laga sameeyo ama ha laga sameeyo caawimo aynu dibadda ka helno waxaa noo qorshaysan oo kale barnaamijka daryeelka caafimaadka xoolaha iyo horumarintooda in xoolaha loo sameeyo biyo xidhanno waaweyn oo laga hirgeliyo meelaha muhiimka ah mega strategic water points in horumarin iyo maalgelin xooggan lagu sameeyo kaabayaasha horumarinta dhaqaalaha sida dekedaha qaboojiyayaasha iyo suuqyada loo iibgeynayo infrastructure kale iyo wadooyinka oo inta badan xeebaha dhibta inaga haysata ay tahay kalluunka inaanay wadooyinba helin dadka xeebaha ku nool dadkeenna aad xeebaha u necab yihiin oo aad aan looba degin oo aan population ku yar yahay marka haddii alla yidhaahdo waxaanu rajaynaynaa intaa iyo ina kaleanu soo bandhigi doonnaba wixiina laga tari karaa fikira iyo wixii dadka dhaqaalaha haysta maalgelin ay samayn karaan inay haddii alla yidhaahdo nagala qayb qaataan hadalkan intaasaan ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu